تام أهم إذا عندنا خبر ينه وأود وأود عن لنا هاي هاد وحن إلى لنا شروع ذا وحن إلى لنا هبك مثلا تستورك ودل كلية هاي هدي له قاسم وياه annaguna wixii allaala wixii aan isleena waa tabartina qabanana insha Allah run ahaantii dadaalo badan baan wadnay waxaan ugu dambeeyay kulan weynihii aan isugu nimi 19 xildhibaan horta ahaa oo golaha deegaanka degmada Garowe oo ilaa 6 xisbi ka soo kala baxay oo xildhibaan xor ahayn baa jira ma xildhibaanada runtii ku bahaysan golaha deegaanka degmada Garowe hadii wax ka qabsoomi waayaan maxay idin qorshe inaan gaari doono awoodaha gaarka aan leenahay qayb kamid ah inaan ku dhaqaaqi doono insha Allah awalaas wuxuu yiraahday mataqaana looma baahna ra'iisul wasaare madaxweyne iscaashaqsan asagana hadda waxa sabab hawada u marinaya oo sheegaya inaan loo baahnayn wasiir iyo madaxweyne iscaashaqsan waxa leenahay saacad wasiir waqtigii waa dhamaaday ma jirto wax justification oo ku haray waa ku cududaadid hadii ay waqtigaas uu soo dhamaado runtii waa mahadsantahay cali aad baan uga mahadcelinaynaa golaha baarlamaanka oo maanta nagu marti qaaday kala fadhiga 15aad golaha wakiilada run ahaantii mujtamacu runtii waxay badan bay u hamuun qabaan inay baarlamaanku go'aan ka gaaraan maadaama lagu marti qaaday oo iyaguna qayb ka ahaayeen maanta kala fadhigan furitaankiisa labadii gole oo nagu mataliyay dawladda federaalka golihii sare iyo runtii golihii baarlamaanka marka waxaan insha Allah isleenahay in wax mira ku dhal leh oo wax ku ool ah inay soo bixi doonaan wax badan runtii khudbadda madaxweynaha way ku jidhayo waxay ahayd doorashooyinkii sida habsamida leh Puntland uga qabsoomay oo 33 degmo ah in insha Allah saddexdii gole deegaan ugu dambeeyay gobolka Nugaal kala fadhiyadooda godhawaan insha Allah in la furi doono taasina iyadana waxay insha Allah saldhig u tahay u noqonaysa dhamaystirka golayaashii deegaanka ee degmooyinka Puntland guud ahaan marka farxad gaar ah noo ahayd aniga iyo Cabdulle Garmaqaate inaan maanta halkan aan ku nimaano anagoo ah xubnihii golaha deegaanka degmada Cusba ee Garowe loo soo doortay run ahaantii dadaalo badan baan wadnay waxaan ugu dambeeyay kulan weynihii aan isugu nimi 19 xildhibaan horta ahaa oo golaha deegaanka degmada Garowe oo ilaa 6 xisbi ka soo kala baxay oo xildhibaan xor ahayn baa jira ma xildhibaanada runtii ku bahaysan golaha deegaanka degmada Garowe baaqaas ay u jeediyeen wasaaradda arrimaha gudaha inay markaa kala fadhiga ay qabtaan waana la mudeeyay insha Allah 2 bisha November wasaaraddu waxay mudeysay in hadii uu jiro xulufaysi awalna ma jirin oo horeyna xisbiyadu madaxdoodu way u gudbiyeen qoraal hore soo baxay marka tani inay dib labaad la soo diraahi runtii waxay ku dhigneed ma garan karo laakiin waxaan filaynaa insha Allah muddada deadline-ka kadib iyadoo aysan jirin xisbiyada madaxdoodu isku waafaqsan yihiin in sanduuqa la aado sanduuquna cid allaalay cidii runtii ay u arkaan 33 xildhibaan oo golaha deegaanka inay ku matali karaan degmada Garowe ay ku soo baxayso taasuna aan ku qanacsanahay cid walbana ay ku qanacsantahay runtii oo matalaada shacabkuna ay tahay taan rabna insha Allah inaan ku gaarno marka waxaan rajaynayaa insha Allah muddo dhow in golahaas fariisan doono doon way Cabdulle Maxamed baa ka dhawaajiyay in muddo la qabto hadii wax ka qabsoomi waayaan maxay idin qorshe bismillaahir rahmaanir rahiim sida Maxamed sheegay mataqaana doorashadu waqtigii lagu qaban lahaa mar hore soo dhamaaday hadii in case ay dhacdo in la qaban waayo doorashadaas annagu xaq baan u leenahay hadii ay socon weydo taasi inaan isdooranno marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan gaari doono awoodaha gaarka aan leenahay qayb kamid ah inaan ku dhaqaaqi doono insha Allah waxaan leeyahay juxasidii la sheegay si asagu hore u sheegay looma baahna awalaas wuxuu yiraahday mataqaana looma baahna ra'iisul wasaare madaxweyne iscaashaqsan asagana hadda waxa sabab hawada u marinaya oo sheegaya inaan loo baahnayn wasiir iyo madaxweyne iscaashaqsan waxa leenahay saacad wasiir waqtigii waa dhamaaday ma jirto wax justification oo ku haray waa ku cududaadid hadii ay waqtigaas uu soo dhamaado mataqaana 2 bisha wixii ka dambeeya 3 bisha maalinta la gaaro waxaan rajaynaynaa inaad iclaamin doontid doorashada oo aad u qaban doontid dadkan waxa ay doonayaan oo si hufan oo xalaal ah asantuuq u dhigi doontid oo xagga lagu kala bixi doono cidda qaadi doonta calafka Ilaahay xagga alle ka qoran tahay laakiin waxa diyaar u nahay tartan waxaan nahay dhalinyaro aqoon-yahan oo soo baxay dalkan waxaan doonaynaa degmada inaan wax badan ka bedelno waxaan u baahannahay inaan cidnalna lagu abuse gareen waxaan u baahannahay in la siiyo fursad aan ku tartanno han baa leenahay waxaan doonaynaa hankeeda loo madax baneeyo sanduuq loo dhigo si xor iyo xalaal aan isku doorno xaq baan u leenahay taa ma aha mid aan cidna ka baryanno waa awood aan leenahay waxaan ilaalinaa shuruucda waxaan ilaalinaa habka mataqaana dastuurka uu dalku leeyahay hadii loo hogaansami waayo
annaguna wixii allaala wixii aan isleena waa tabartiinaan qabanayna insha allah abdillahi